السلام عليكم سومالي وين meel kasta aad joogtaan waa walaalkin ciid oo idin leh isoo noqod wanaagsan badanaa meeshaan uma badni sorry mashquul baan iska ahay maanta waxaan idin sheegayaa xaafadaha maaragtay laga gadan karo guryaha baa idin soo tirinayaa adiga waa 5 xaafadood mise waa 6 xaafadood baa ugu fiican oo ugu muhiimsan in guryaha laga gato waxaa ka mid ah xaafadda Backland Haligam oo Kilimaan iska dheh Kalalashwa Lavington xagga haddii la aado iyo dhanka airportka Southsea iyo Southby shaashada idin kusoo qoraya xaafadaha laakiin xaafado waxaa jira ugu muhiimsan oo markaa rabto inaad guri gato muhiimaddu waxa weeye dadkan real estate maaragtay oo expert ku ah waxay dhahaan qofku markuu rabo inuu guri gato waa inay u dhowdahay public transportation-kii iyo muxuu ahaayey lama soo koobi karo xoogaa yar baan ka soo qaadaya shaashada ayaan soo saaraya screenshot baan ka qaadaya adiga main roadku waa inuu guri ku yaala uusan ka fogeyn meelihii maaragtay accesskii maaragtay ahaa shoobinadii iyo wixii waayo ka waran hadda xaafad aad guri ka gato meel hayjada maaragtay oo iskuulna ka dhoweyn meelihii maaragtay shoobinada iyo moolashin aan ka dhoweyn dee waa xaafad ergo ah marka aniga weliba hadda qurbaha Soomaalida waa kasoo guuriyaan oo Kenya soo degayaan marka sababta soo degayaan waxa way caruurtooda meeshii maaragtay iskuulka u dhawaa dugsiga quraankii wuxuu u dhawaa hadda xaafado waxaa jira oo Kilimani Kalalashwa kala ah Kalalashwa kala hadda family soo dego Soomaaliya xaafadda Kalalashwa dee dugsi ma leh malcaamad dugsi quraan ma leh masaajid ma lahan Lavington sidoo kale waa xaafado maaragtay dee ay dadka Kenyaatiga iska degaan iyo cadaankan iyo qofka dadkan diblomaasiyiinta maaragtay oo safaarada ka shaqeeya degan ma ogtahay ajaanibta ah marka hadda dhahdo hadda ka soo qaado kale xaafad baan Lavington ku gadanaya anoo family aan soo guuraya dee wax maaragtay macquul ma aha oo caruurtii maaragtay waxay noqonaysaa in bas lagu soo qaado lagu sii qaado oo maaragtay Backland iyo kale la keeno hadda Backland oo kale waa number 1 mataqaanaa familiga dadka maaragtay adiga iska qurbo joogtay say wallahi isaga badan marka waa meel aad iyo aad u fiican because of what isbitaalka waa kugu dhow meelihii maaragtay malcaamadii dugsi quraanadii baa kugu dhow iskuuladii baa kugu dhow cunugu waa lugeynayaa guriga ka baxaya adiga 10 talaamiya iskuulkii buu galay dugsigii buu galay masaajidkii buu joogaa marka maasha Allah marka xaafaduhu laba u kala qaybsamaan midna waa residential oo Soomaalidu ay soo degaan oo family ahaan u soo degaan oo kale oo family u soo degaan midna waxa weeye nin dhalinyaro ama gabadh dhalinyaro oo kale qurba isku joogto kala rabto guri inay gato investment ahaan u gato kuwaas waxaan kula talin lahaa investment ahaanta u gadanaya inay Kilimani ka gataan iyo Kalalashwa iyo Lavington iyo because of what iyagu masaajidna uma baahna masaajid oo baahan yahay horta wadada islaama laakiin as investi adu waxaad ka kiriso waxba kaama gelin badanaa xaafadda Kilimani iyo Kalalashwa iyo Lavington saddex xaafadood iyo Westland iyo Westland waa number 1 oo commercial area waa meel iska buuq badan weeyada meel la degi karo maaha waa meel commercial meel maaragtay oo residential ma ahaba inkastoo ay guryo laga dhiso hadda waa iska maaragtay meel booming oo maaragtay oo commercial ah moolashi baa ku yaala shaleemooyinkii mataqaanaa waa iska doontoonkii magaalada maaragtay meel dee iska saxmada weeye oo qofku hadduu subax soo kaco adiga duhuradii hurdo kuma laaban karo meel iska saxmada marka badanaa dadku waxay door bidaan dadka mataqaanaa touristiga iyo cadaankan iyo waxaan oo kale maaragtay dadka touristiga oo dhan inay degaan xaafadaha Kilimani Kalalashwa iyo Lavington badanaa marka ugu horeysa xaafado waxa kale leeyihiin ABC number 1 waxa ah xaafadahaas Kilimani ba ah because Kilimani waxay ku doorteen dadkan ajaanibta inay degaan qofku markuu soo baxo moolku galaya maqaaxida cuntada meel kasta access buu yahay Kalalashwa qofku hadduu hotel ka soo dego ama meesha uu degan yahay oo apartment uu ka soo dego adiga ma petrol station ba meelaha ku yaalba gas station iyo meel maaragtay iska yara maaragtay badanaa marka waxa lagu doortaa xaafadaha markaad guri gadanayso apartment rabto inaad gadato
gurigan access ma u leeyahay moolashii iyo eriyadii iyo meelihii maarata maqaaxida because waxaan u iri mataqaanaa Kilimani qofka gata horta waxaan waa xaafado kooban weeye Kilimani kale qofka guri ka gata kan ugu badan baa wax soo lugeynaya kan ugu badan baa 10 daqiiqo lugeynaya qof Kilimani ka gata 10 daqiiqo kan ugu badan oo lugta ah inuu maqaaxi aado waana iska maqaaxiyo waana meel maarata moolka aad ka helayso wax kasta shoppingkii dawada cadiga ka helaysaa koolgeed baa ka helaysaa haddaa madaxa laga qabto farmasheesh baa ku yaal access weeye iska baarar yar baa ku yaal iskaga caweeyo laakiin Kalashwa sorry mataqaana developers Kalashwa guriga ka dhisa mataqaana laakiin hadda xaafadda waa xaafad soo koraysa ase mustaqbal 10 sano damo soo socota maartay inay de moolol yeelato oo maartay laakiin xaafadda marka uu gaari kula dhex marayo ama gaari ku dhex marayso ama taxi kula dhex marayo waxa is dhisaa what the hell meeshan mataqaana ghost areadan maxaa weeye meeshan meel reer akhrood ba meeshan qof laamiga maraya arki maysidba habeenii maalinba waayo guryaha lagu jiraa meel maartay maqaaxiya ama meel maartay shopping center ama meel maartay la isugu yimaado oo mool arki maysidba marka Kilimani waa very important meelahaas guri ka raadiya maxaa yiri haddii aad xaas tahayna oo reer wadatana maxaa kugu fiican Backland iyo South C iyo South B iyo South C malcaamadihii iyo dugsi quraanadii waa isteed xiran moogta hal geed baa laga galaa marka cunugu meel aadi maayo halka geed aad ka gashay iskuulkii buu ka helayaa dugsigii buu ka helayaa marka saddex xaafadoodna family ahaan buu u fiican tahay waxa weeye waa South C iyo South B iyo Backland saddexdaas hadda saddexda xaafadood aan soo sheegay oo maartay South C iyo South B maartay iyo Northwest iskaga dar iyo Backland waa saddex xaafadood ay ku noolaan karaan waxa weeye family haddii maartay gabar ay rabto inay la soo guurto reerkeeda haddii uu rabo inuu la soo guuro reerkiisa waa maartaqaana waa meesha waa the best place ay ku noolaan karaan weeye oo family ahaan ugu noolaan karaan weeye aad buu fiican tahay saddex xaafadood marka waxa laga yaabaa inaad isdhahdaan hele warninku maanta dhan xaafado aan la aqooni balaayo ka warramaya Nairobi Soomaali waxa ugu caansan waa Islii warninku Islii ma ku sheekeeyo Islii saan ma taqaanaa aan dad badan aan waxaan horta mawduucan aan u diyaariyay waxa weeye waa qurbo joogta la hadli maayo dad Kenya ku nool aniga marka qurbo joogta ma anfacayso in Islii soo degan waayo caruur badan baa aragnay oo meesha la keenay oo soo dejinay hey man wixii buu ku hadlayaa luqadiisu iska hadlayaa waxa loo keenay meesha inuu dhaqanka barto Afrika inuu Soomaali barto inuu caruurtiisa maartay kula kulmo maartay meelaha maartay playgroundka caruurta ku ciyaarto inuu kula kulmo loo keenay I don't know maartay kambaniyada guriga dhisa maartay Islii space-kooda waxa la gadanayaa half acre kaas waxa laga taagayaa 1 tower kuwa ugu iimaanka daran baa waxay ka taagayaan 2 tower war half acre way xaafadaha qaar 1 acre baa waxa laga dhisaa hal tower kaliya oo waxa loo sameeyaa baakino oo waxa loo sameeyaa playground oo caruurta ku ciyaarto marka waxa way problem waxa way cunuga qurbaha ka yimi haddii maartay Islii la keenay oo meel lagu ciyaaro aysan lahayn oo guriga ka soo deg haddii uu dooto cunugaas uu guriga ka soo baxo waxa weeye sambuus meel ka soo gadanaya qolkiisa ku soo noqonaya waayo meel caruur ay kubad ku ciyaaraan meel lagu ciyaaro ma lahan qolkiisu galaya PlayStation-ka marka maxay dhaantaa inaad meeshiisa aad ka keentay iyo meeshan waxa isma dhaanto marka dadkan qurbaha caruurta ka keensanaya Islii inay degaan uma fiicna ay guriga Islii laga dhisayo waa guryo hal booskaas haystaan qof meel kale ma istaagi kartid wadada mataqaanaa guriga ku dhamaanaya wadada istaagto ana ka soo leexataa gaariga space kale guriga Soomaali meesha laga taagay iyo hooso baakin ah maarta wax meel marka lagu noolaan karo ma waa meel iska dad xamaalata ku noolaan karaan iska mataqaanaa single ah iska noolaan karaan dadkaas Islii ka shaqeeya ay ku noolaan karaan way meel family ku noolaan karaan Islii ma markaan saan leeyahay anu Islii ma nabci Islii anu waxa way markaan Nairobi joogo meesha 80% aan taymkii ku qaato asxaabtay kula kulmo aan wax ka cuno oo aan jeclahay way haddaan Islii tagin aniga madaxu ima digo meel aad u fiican way xaafadaha ay soo tiriyo mataqaanaa Backland iyo Kilimani iyo Kalashwa iyo Hurlingham iyo Lavington iyo South C iyo South B waxa ay soo tiriyo dhanna meesha ka adeegtaan way waa Islii lama huraan way waa meesha laga adeegto waa Islii marka aanu ma nabci laakiin waxa fiican dadka marka wax soo gudbinayso barnaamij inaa wax sax ah iyo dadkan waxay jecel yihiin waxyaalaha fiican inaa soo gudbisaa fiican iyo maartay meelaha area fiican ma inaa laab la kaciyo meeshan aan jeclahay ma waxay dadkan ay rabaan iyo waayo casharka hore baa maartay experience laga qaataa oo maartay ahaa in maartay aan dad badan maartay Islii keenay waxba ka duwaneen inay Mareykan iyo Yurub ka soo guureen waxba kama duwana waayo Islii meel caruur lagu hayn karo maaha waa meel iska saxmad ah waa meel commercial ah
anu I don't know waxa la isku wado ganacsiga iyo residentialka ma aqaan waxa la isku wado meeshan in loo daayay ahayd meel moolasho iyo bes iyo kafeteriyada loo aado teda kale xaafadaha adin sheegay hadda aan Resort C ama Resort B ama Parkland daga waxa weeye waa meel marka rabto inaad isla ka soo adeegato aad Uber-ka soo raacdo Bolt-ga hadda waxa soo baxay app la dhaho faras marka Soomaali baa iska leh anu waxa ma aqaan Soomaali baa liigu yiri anu waan isticmaalaa aad iyo aad baan u isticmaalaa mar kasta wuxuu siiyaa discount mar kasta discount buu siiyaa waa app-ka aan la yaabay meesha lacagta sil Soomaali waa dad ma generous waan ka yaabay dad deeqsiina app-kan hadda Bolt-ga hadda markaad aad raacdo taksiyada raacdo Kenyaatiga wuxuu ku leeyahay anaga faras baa noo fiicanba waayo app-kan waa greedy app-kan maarta Bolt-ga waa app maarta oo mataqaanaa bakhayl ah way ku leeyahay kana noo fiican hadda marka aan Nairobi timaado oo simkaarka qaato oo register faras aad iska register anu faras wallahi wax la ma aqaan mana xayisiinayo laakiin marka iska register from maalinta aad tagtay ilaa maalinta ka tagayso waxay helaysaa discount ba 20% haddii aad soo sii degto haddii aad Kilimani degto aad rabto in asli timaado waxaad ku imaanaysaa 350 haddii u badato oo maartay oo markii waxa jirta rush hour-ka oo kale ma 400 ba laakiin kuwa kale Bolt-ga kale iyo Uber-ka iyo 1000 shilin iyo 600 shilin 700 shilin iyo marka waxaan ka soo wadaa xaafadahaas oo kale qofka degana maartay oo hadda Parkland oo kale markaad degto isla ka soo adeeganayso access way يعني Limuru Road baa goynaysaa dag mataqaanaa Bangani police baa goynaysaa Juja Road waa joogtaa isli dag 10 minutes drive weeyo marka Parkland aad kala joogto ama ka soo adeeganaysaa waa ka soo noqonay maqta marka app-kaasna isticmaala oo faras hadda tagtaan meeshaas aad buu u fiican yahay faraskaas app-kaas aad iyo aad u fiican weeye lama yaqaan hadda laakiin hadda soo socdaa uu soo baxaya maadaama hadda app-ka kale oo maartay Bolt-ga uu ka saarayo suuqa si u socotaba waayo hadda boda kasta iyo taxi driver kasta wuxuu isticmaalaa faras marka xaafadahaasna waa xaafado aan u kala saaray as a family iyo single gabar maartay invest u gashato ama wiil rabo inuu investment u galiyo xaafadaha hadago Kilimani guriga ka gato iyo Kalesho iyo Lafton iyo Westland ka gato haddii aad family tahay reer iyo xaasna the Parkland iyo Resort C iyo Resort B iyo Bangani Jujubi meel la jirta maartay oo isli markii dhanka loo gooyo maartay Mauritania Road dhanka loo gooyo Jujubi xaafad la jirta xaafadaasna waa xaafad fiican oo shirka hadda inkastoo ay jaamis ka noqoto shirka inuu way fiican tahay qofka dega Banganina way fiican tahay marka laakiin xaafada Parkland oo dhaho waa xaafada aad iyo aad hadda u fiican weeye waayo markaan Parkland in leeyahayna ha u qaadinina hadhow maartay ha ku yaacinina kambaniyada guryaha Parkland ka dhisa waayo Parkland isma taqaan Parkland waa meel weyn xaafadaha Soomaalidu degto oo community-gan hadda ka soo qaado kale kambani guri ka dhisaya Parkland laakiin xaafad Kenyaati oo gaalo degan tahay oo kale la dhaho oo Parkland inta aniga maqasho kale aad dhahdo oo Parkland gurigaas raba isku hubi xaafadu ma u dhowdahay waxa jirta waxa la dhaho Third Avenue Second Avenue First Avenue oo xaafadahaas oo aga khaan u dhow aad bay Soomaali ugu baahan tahay ilaa maartay City Park State Limuru Road ka maartay wadadan oo hatta KFC-ga maartay gadaashiisa kale ilaa area-daas kale waa la degi karaa laakiin meel ka fog oo ka baxsan hadegin iyada laftigeeda hadda dil dhaho Karura Forest oo kale ba guri ka mataqaanaa laga dhisaya kale Karura Forest waa la dhahaa de girgirib u dhowdahay oo kale waa meel maartay UNT balaayo degan tahay safaaradda Mareykanka ku taala maxaa ka doonaysaa xaafadaas xaafad maartay diplomatic iyo balaayo degan tahay weeye hay'adaha iyo degan yihiin Parkland way saaran tahay xuduudka leedahay marka iska ilaaliya xaafadaha hadda ku dhaho Parkland oo kale aan ku dhaho qaadan Parkland dhan inay tahay meel fiican ha u qaadan waxa jirta meel unique aga Diamond Plaza maartay oo kale Diamond Plaza 1 Diamond Plaza 2 xaafadahaas oo kale aga khaan City Park State area waa meel fiican iyadana maartay Kilimani soo far hadda masaajidda kuma arag ba haligan ba masaajid ku yaal laakiin Kilimani masaajidda kuma arag ciyaalo malcaamad iskool kurtan kuma arag meel reer u fiican maaha laakiin as gabar iyo mataqaana wiil maartay rabo inuu maal gashto Kenya Kilimani ka gataan dhiiraani waliba aan waxda Westland hadda ma dhahan Kalesho ma dhahan Lafton ma dhahan laakiin Kilimani ha ka gato Kilimani waa number 1 qof ka rabtan soo weydiiyay Nairobi maanta Kilimani qofka as invest u gashanayo oo Airbnb ama booking.com rabo inuu galiyo oo dad dalxiisayaal rabo inuu ka kireeyo waa number 1 hadalka in ku badiyay waan salaamaya